tuke oo afka carabiga loo yaqaano quraab afka ingiriisiga loo yaqaano dikrow waa noole mucjiso ah waxaana loo yaqaanaa macalinka bani'aadamka maadaama uu baray aadamaha sida wax loo aaso halkan daawadayaal waxaanu idinkula wadaagi doonaa sheeko la yaab leh oo ku saabsan jirrabaad halxidhaale ah oo lagu sameeyey nolosha tukaha waxaa jira cilmi baadhiso joogto ah oo ay khubarada daraasaadka nolosha xayawaanku ka diyaarinayaan noolayaal badan oo uu ka mid yahay midda ajaadgooniga ah ee tukuhu si faahfaahsan ugama hadli doono nolosha tukaha laakiin qurmadeennan daawadayaal waxaynu ku soo qaadan doonaa arrin cajab badan dhalisay taasi oo ka yaabisay dad fara badan taasi oo ah jirrabaad nololeed oo lagu sameeyey in lagu ogaado heerka garashada iyo garaadka fahanka shimbirka loo yaqaano tukaha waxaa la diyaariyey halxidhaale ka kooban 8 weji kaasi oo la doonayo in lagu ogaado heerka garaadka iyo garashada noolahan tukaha waa jirrabaad ka kooban 2 ulood oo kala weyn 2 sanduuq oo caagaga 3 sanduuq oo kale oo ay ku jiraan 3 dhagax iyo sanduuq lagu riday cadka la doonayo inuu si kama dambays ah ula soo baxo tukahan haddaba waxaa daawadayaal cajiib iyo cibaaro ah in aanu xayawaankan tukuhu hal tallaabo khaldayn isagoo u kala hormaynaya sida ay isugu xigaan ee la doonayo in loo furfuro halxidhaarahan iyadoo aanay midna mid kaga khaldamay bal haddaba daawadayaal aynu la lug noqonno oo la furfurno tukahan heerka fahankiisa iyo garashadiisa lagu sameeyey jirrabaadda ee la socod wanaagsan inta aynaanse barnaamijkeenna gudagelin aan idin xasuusiyo daawadayaal waxaa iga afeefa in aan tukahan lagu tababarin shaxdan sida tusbaxa isugu xidhan waana markii ugu horraysay ee uu arko waxaanu noqonayaa bay leeyihiin khubarada dhinaca nolosha xayawaanku shimbirkii ugu horreeyey ee ku guulaysta xaajadan ugu horrayn wakhti ayaa uu qaadanayaa si ugu baarandego fahanka halxidhaalaha ee ay tahay in la furfuro sida isugu xigaan tallaabada koowaad waxa uu ku booday halkii laga soo laalaadiyey usha yar oo ah labada ulood ee la isticmaalayo midkood waana middan ugu horraysa ee uu ka bilaabmayo halxidhaalahan furfuristiisu waa uu soo degey waxaanu ku soo dherindheriyey dhagixii ugu horreeyey wax u muuqda oo uu ku qabto garan waa laakiinse waxa uu ku tashaday in uu soo saaro dhagaxa labaad kanna uu halkan dhigto haa u istaagtay kaatiinye leh haddeer ayay wax u baxeen oo uu wax fahmay soo qaad mid ka mid a labadii dhagax ee uu soo saaray waxaanu ku riday sanduuq ay ku jirto usha dheer oo ah midda sida kama dambaysta u dhammaystiri doonta hawsha la doonayo in la qabto haddana soo qaad dhagixii saddexaad kuna rid sanduuqii caagga ah ee wax laga dhex arkayey ee ay ku jirtay usha dheeri la soo bax ushii oo soo qaad waxaana gebagebo ku dhow howlgalkii halxidhaalaha tukaha la aad ushii dhankii ay ka xigtay quruska yar ee hilibka ahi kuna soo dhirindhiri oo sidaa ku quuday waxaanu si sax u dhammaystiray 8 marxaladood ee la rabay inuu u maro si sax isagoo midba mid aana kaga khaldamay haddaba daawada khubarada dhinaca nolosha xayawaanka ee sameeyey jirrabaadan iyo halxidhaalahan lagu qiimeynayo heerka garaadka fahanka tukaha ayaa sheegay in arrinkan uu tukahani sameeyey aanu ahayn arrin lagu tababaray ama uu hore wax fahana uga haystay balse xaajadan ayaa ahayd markii ugu horraysay ee shimbirkani lagu tijaabiyey arrinka waxaanu noqonayaa shimbirkii ugu horreeyey ee noociisa ah ee ku guulaysta marka loo eegayo shimbiraha kale halxidhaalaha noocana maxaa daawada ka taqaanaa adigu dhaqanka iyo nolosha tukaha baallada hoose noogu reeb wixii xog ah ee aad ka hayso warbixinta xigtana waxaynu ku eegi doonaa oo aanu si qoto dheer ugu lafaguri doonaa waxa uu yahay shimbirkan tukuhu iyo cibaarooyinka kala duwan ee ku jira noloshiisa annagoo kuu soo gudbin doonaa xog aad hayso iyo mid aanad hore uga ogeyn